madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa halkan oo ah wasaaradda gaashaandhigga u yimid dardargelinta howlgallada lagu ciribtirayo al-shabaab oo horay madaxweynuhu ugu dhawaaqay. wixii ka dambeeyay 14 Oktoobar qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay heegan dheeraad ah gelisay ciidamadeeda kala duwan kuwaas oo qabay amar dagaal oo horay u bixiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. howlka shirarka wasaaradda difaaca oo ay ku sugnaayeen saraakiishan kala duwan ee ciidanka xoogga dalka ayuu madaxweynuhu ku daawaday suugaanta loo diyaariyay howlgalka ciidanka xoogga dalka oo ay kooxda horseed ku soo bandhigtay. taliyaha militariga Soomaaliya Sarreeyagaas Cabdiwali Xuseen Jaamac Gorod ayaa sheegay in ciidamadu diyaar u yihiin in dalka ay ka xoreeyaan kooxaha nabadda diidan. khudbad uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u jeediyay saraakiisha ciidamada ee halkan ku sugan ayuu ku bogaadiyay guusha ciidanku ay ka soo hooyeen dagaalada maalmihii ugu dambeeyay ay kaga saareen kooxda al-shabaab deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. waxaan rabaa horta inaan u hambaliyeeyo ciidankeena foontii ku jira aagaga dagaal ku jira guulaha ay gaareen iyo sida ay ula dagaaleen qolada shabaabka ah ayna uga saareen aagagii ay ku jireen oo ilaa hadda ay dhufaysada ku jiraan oo waliba korkooda ku da'ayo aad iyo aad ayaan ugu hambaliyanayaa guulahay soo gaareen. waxaan aaminsanahay inaan ka guulaysanayno shabaab. khibraddeedii waa leedihiin, wadaniyadeedii waa leedihiin, waad soo aragteen dowlad istaagan oo xoog leh waa soo aragteen. dowlad wanaagsan oo diyaar u ah inay hormood idin noqotana waa haystaan oo annaga koob ka ah inaan la gala dagaal. shacab wanaagsan oo baraarugay oo soo jeedana waa haystaan oo idin daba taagan oo garab siinayna waa haystaan. wax noo haray ma jiraan. dagaalkii waa socdaa, fadhi ma yaallo. maskaxdii iyo aqoontii iyo khibraddii ummadda ay sugaysay iyo shacabka Soomaaliya sugayn waa idinka. marar badanna waa idiin sheegay, haddana waa idinkugu celinayaa. cid kale oo Soomaaliya u maqan ma jirto aan idinka ahayn. waxaan idinka codsanayaa waajibaadkiina sida uu yahay oo aad ugu dhaarateen inaad u fulisaan oo aad ka fogaataan wax alla wixii dalkan burburiyey aad ka fogaataan. waxaan idiin sheegayaa anna inaan idin horkaco. ciidamada soo majeystayaasha xoogga dalka ayaa maalmihii ugu dambeeyay gaaray goobo lagu tumayo in kooxaha nabadiidku ay ku dhumaalaysanayaan kuwaas oo ku yaala gobolka Shabeellada Dhexe. iminkana waxaa goobahaas gacanta ku haya ciidanka militariga Soomaaliya oo ammaankooda sugaya. Ali Baasha Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, xarunta wasaaradda gaashaandhigga.